boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Cadaado oo maanta banaanbax ka sameeyay bartamaha magaalada Cadaado ayaa banaanbaxaasi waxa ay madaxda qaranka Soomaaliyeed uga codsanayeen in ay ka qayb qaataan sii deynta Maxamed Cabdi Xasan Afweyne oo ahaa ganacsade ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya isla markaasna muddo 4 sano ah ku xiran dalka Belgium. dadweynihii mudaharaadkaasi dhigayay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa maanta banaanbaxan ballaaran ee ka dhacaya Cadaado ee Galmudug aan isugu soo aruurnay oo maanta uga banaanbaxayno Maxamed Cabdi Xasan Afweyne xiritaanka uu sharci darrada ee uu ku xiran yahay Brussels waa xaq darro waa kibir waa talaabo ma arkin oo lagu qaaday si xaq darro ah waxaan leenahay madaxda sharafta leh ee mas'uuliyadda Soomaaliya qaaday waana uga mahadinaynaa qaar buu soo daayay waxaan rabnaa maantay kuwa la haysto ee xaq darrada lagu haysto Afweyne ka mid ah waa reer Galmudug waa Cadaado waxa ka codsanaya Brussels baa joogta waa ku taageersanahay nin walba wuxuu dhigtay baa dhigaal u ah Maxamed Cabdi Xasan wuxuu ahaa deegaankan indho u ahaa indhihii ay ka rideen waxayna ku afduubeen dalka Belgium waxaan dawladda dhexe ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha fariin halka waa looga diray anaguna waxa fariin u dirayaan ka codsanayaa madaxweynuhu iyo deegaankan hadaad keentiin Maxamed Cabdi Afweyne taariikhda inta aad nooshiin cimri daa'im annaga idin ballan qaadayna inaad dalkay dadka matashiin laakiin waa inaad arrintaas gacantiina ku jirtaa sidoo kale banaanbaxa waxa ayaguna goobjoog ka ahaa madax ka tirsan maamulka Galmudug iyo madaxweynihii hore ee maamulkii Ximan iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiicay oo isaga dhawaan laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Belgium anigu waxaan ahay xogogaal waxaan ahaa rafiiqiisii la xirnaa waxaan ogahay dacwada ka dhanka ah Maxamed Cabdi inaysan ahayn mid xalaal ah waxaan ogahay qaabka loo maray xarigiisa inaysan xalaal ahayn waxaan ogahay qaabka loo process gareeyay ama maxkamadda loola tagay inaysan xalaal ahayn waxaan ogahay waxa lagu xukumay ama dambiga lagu xukumay inuusan ahayn mid xaq ah inuusan ahayn aan ogahay wasiir dawlaha arrimaha gudaha Galmudug Cumar Guureeye ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka socday dhanka Galmudug ee ka hadlay mudaharaadkaas waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno dareenka iyo shucuurta aad maanta isugu soo baxdeen kuna muujinaysaan sidaad uga xun tihiin walaalkeen Maxamed Cabdi Xasan oo si runta deegaankan Galmudug ama Soomaaliya oo dhan ahaa nin saameyn weyn ku lahaa horumarka iyo deegaankan ka jirana gacan weyn ka geystay banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada Cadaado ee madaxda qaranka Soomaaliyeed looga codsanayay inay ka qayb qaataan sii deynta ganacsade Maxamed Cabdi Xasan Afweyne oo ku xiran dalka Belgium ayaa ku soo beegmay xilli ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre uu ku sugan yahay dalka Belgium Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.